Hello, Assalamu alaikum. Waa Johnny Cabdiqani Jabane. Maantay videogan aan duubayo badanaa waxaan rabaa laga yaaba inay ka faa'iidaystaan dhalinyarada badanaa asylum-ku u xareysan yahay. Waxaan rabaa inaan kaga hadlo caddeymaha laga rabo qayb ka mid ah oo muhiim ah. Marka caddeymahaas tusaale ahaan caddeyn maxay tahay? Asylum application haddaa xareysatid, the burden of proof, culayska caddeynta qofka ayay saaran tahay. Marka dhibtii waddankiisii kaga soo cararay wax allaale wixii ku saabsan oo caddayn ah ama sawirra ha aadaan ama police report oo booliiska laga soo qoray ha ahaadaan ama medical records oo dhakhtar waraaqo qofkii soo arkay ha noqdo wixii la heli karo. Alright, kuwaas ayaa waxa weeye caddeymo la dhahaa. Laakiin midda kaleetood badanaa maanta aan rabo inaan ka hadlo waa waraaqaha loo yaqaano witness statements ama markhaatiyadii ogaa dhibtii kugu soo dhacday ay kuu soo qori karaan oo taageeri karta kiiskaaga asylumka. Marka dib baan arkaa mararka qaarkood qayb dadkeena ka mid ah ka haysata qaabka ugu wanaagsan uu oran karo xitaa qofku dadka dhibtiisii ogaa iigu soo qor ama waraaqahaas oo kaleetood certain elements like waxyaabo qaas ah oo muhiim ay ku tahay in ay raacdo. So waxaas baan rabaa little bit inaan idinla dul maro. Marka tanna please pay attention, waa very important. Maxaa yeelay from yani khibrad ahaantayda waxaan arkay qofku inuu dhahayo xitaa haddaan loo sheego qayb ka mid a dadkii uraxan waa aqaanaa, just I know it. Laakiin walaal just it is detailska waa muhiim. Annaga looyaradeenna ama xaakimku hadhow aa hortegi doonta ama dowladda qareenka ka socda qareenadeenu waxa ugu badan oo aanu samayno waxay tahay we pay like attention, yani aad baan waxaan u fiirinaa yani detailska kelmadaha haddii ay wax jiraan iyo haddii kaleeto. Marka tan qofka marka ugu horeysa waxaan kula talinayaa markhaatigu marka ugu horeysa waa in of course magaciisa uu isa sheegaa, meesha uu ku nool yahay, iyo tan kale oo muhiimka waxay tahay sida uu kuu yaqaano knowledge. waa kala soo magara relationship maxay tahay xiriirkeeda ka dhexeeya qofkan markhaatiga ah, ma iyeydaya ma aftigaya ma derisa ahaydeen saaxiibkaaba waa ifaan soo magara. So all taa muhiim waaye that bridge linkigaas qofku in uu waxeeyo. waa kala soo magara magacayga waxaa la dhahaa for example xyz qofkaana waxaan deris baan ahayn, macallin baan u ahaa, something like that. waa kala soo magara walaashiisa ahaa, iyadiisa baan ahay, hooyadiisa ahay. Detailka yarka ah haddii laga tago it create su'aal bay keeni kartaa oo ah qofkan markhaatiga kuu soo qoray see buu kuu yaqaanaa, see bay u ogaan karaan. waa kala soo magara so waa muhiim waaye taas. Midda kaleetood waa the content. qofka markhaatiga ah waxa uu soo qoraayo, yani the content waxa ay ka kooban tahay warqadda uu soo qoraayo. Well, marka qofku number one shuruudda ugu horeysaahi waa in uusan buunbuunin dhibta kugu soo dhacday, waa in uu runta ka sheegaa wixii kugu soo dhacay. Well, sidoo kalena waxa uu og yahayna waa inuu si wanaagsan u soo qoraa, waa inuusan dul marin, uusan generalizations camal uusan dul marin. tusaale ahaan uusan dhihin magacayga waxaa la dhahaa xyz, halkaasaan ku noolahay, derisaan ahayn tusaale ahaan, laakiin waxaan ka markhaati furayaa in ymd dhibtaas uu kusoo dhacday, in lasoo dilay, in lasoo qaraacay, in lasoo kufsaday. Hadda markhaatigaasi muxuu noo sheegay? Of course intii ugu horreysay magaciisa, meeshuu joogay iyo suu ku yaqaanay, shuruudaha uu ka soo baxay. Laakiin markii laga hadlay dhibtii kugu soo dhacday, yani wuu noo dul maray, waxba ma uusan faahfaahinin. So waa muhiim waaye marka qofku sidii warqaddii declarationka ahayd videogii hore aan ka samaynay qaab la mid ah oo kaleetood inuu isku dayo qofka markhaatiga ah inuu yidhaahdo bal qofkan aan u markhaati furayo oo dhibta haysataahi maxay tahay waxa ku dhacay. So marka ugu horeysa what maxaa dhacay, so dhibaatooyinkii kugu dhacay waa in uu sharaxa qofkan maxaa ku dhacay. waa kala soo ma garan nabarro noocee ay gaareen, what maxaa ku dhacay, waa inuu markaas faahfaahiyaa wixii uu ka og yahay. Well, midda kalena yaa ku sameeyey oo the who part, yaa waxaan dhibtan ku sameeyey, goormaa lagu sameeyey, xilligii timelinekii hadduu og yahay, where
dhibtaan qofkaani xaggee bay ugu dhacday iyo midda kale ugu muhiimsan oo aragno oo dadka laga tago waa haddii uu og yahay waa qofka markhaatiga ah the why part maxay tahay maxaa u malaynaysaa in loo soo dhibaateeyo qofkan well qofkan markhaatiga ah mararka qaar haddii uu yahay qof familigaaga ah oo isaguna sidoo kale dhibtaan ama dhib la mida ama loo dhibaateeyey dartaa ama isaga dartii lagu dhibaateeyey sidoo kaleetood qofkaas waa in uu sheegaa dhibaatadaas tan kaleetoodna waxay tahay waa haddii uu og yahay waa inuu ka markhaati furaa fear of return ama future persecution yacni haddii aad ka baqaysid in aad meeshii lagugu soo dhibaateeyey aad ku laabatid oo waddankaagii ah iyo cidda aad ka baqaysid hadduu og yahay iyo dhibta ay kusoo gaarsiin karaan see buu og yahay waa ifaan soo ma garan waa muhiim marka gabagabadii waxay tahay waraaqaha markhaatiga walaalayaal waa very important waxa weye waa muhiim adiga qofkay mas-uul ka saaran tahay in my practice waxaan arkaa dad aan lawyer ugu noqday on appeal yani appeal ahaan lawyerro kale lahaa ma dhahayo lawyerradu way wada xun yihiin laakiin dayacaad badan kiiskooda ay ka dhacday oo sababta loogu diiday sharciga ay noqotay waxyaabo la xiriira runsheegi credibility oo dhaliyey tusaale ahaan qofkii wixii uu isagu dhibtii uu gudbiyey oo applicationkiisa ka qornay dhibtii kaleetood oo dadkii markhaatiyada u ahaa waa garad soo ma garan ay ka qoreen iyo maalinta maxkamadda uu joogay uu ka markhaati furay sidoo kale waxyaabo qaarkood iskhilkhilaafaya waa ifaan soo ma garan I will give you an example qof baa wuxuu dhahay dhacdo specific ah tusaale ahaan January 3rd tusaale ahaan 2000 say 19 oo kale baa laba qof baa isoo weeraray gurigayga iigu yimaadeen marka labada qof baa nabaro yani dhibaato ah ii geystay I'm generalizing laakiin markhaatigii baa isagana wuxuu soo qoray oh just on that specific day ninkan waxaa soo weeraray laba ma ahayn afar bay ahaayeen do you see the discrepancy like iskhilaafka right away adigii baa marka maalintaa markhaati furay adna waxaa dhahday no afar iyo laba midna ma ahayn hal bay ahaayeen so taa micnaheedu waxaan ula jeedaa walaal number kow runsheega kiisaskani waa muhiim number saddex adiga ayuu mas-uul kaa saaran yahay the burden of proof is on you like adigu kaa saaran yahay in number kow aad hubisid markhaatiyadan waxa ay kuu soo qorayaan aad isbarbar dhigtid asylum applicationkaagii mas-uuliyadda ugu horeysa qofka asylum seekerka ah ayay saaran tahay midda kaleetooda aan qof walba ku dhiira gelinayo oo kiisaska sugayo waxay tahay mar walba waa muhiim inaad copy ka haysatid applicationka lawyerku kuu xareeyo waa muhiim alright midda kaleoo saddexaad waxaa muhiim ah oo qalad weyn oo aan arkay ayaamahan dambe oo soo kordhay waxay tahay qofkii oo waraaqo isku mid ah aad u malaynaysa hal qof inuu soo qoray oo magacyada uun laga kala bebedelay saddex afar qof markhaati ah ka keenaya no taa walaala dhibta ay keenayso waxay tahay dhib dhaawac baa laga yaabaa inay u keento kiiskaaga alright waa garateen soo ma garan marka qof walba oo markhaati ah waa inuu isagu si u hadlayo ugu soo qoraa kiiskiisa marar qaarkood waa la aqbali karaa in certain countries oo kale waxaa dhici karta magaalo oo kaletood in laba markhaati ay u tagaan qof norway dadka wax qorqoro ah oo uu qofkaasi ay u sheegaan dhibaatadii uu qofkaasi almost qoraalkoodii uu isku ekaado taasoo kale qofkaas qoraayana waa in uu sheegaa hadhow caddayn kusoo daraa in dadkaasi u yimaadeen qoraalkaas uu ka soo qoray iyo norwaygiisa notaayadiisa magaceeda meesha ay ku taalo iyo haddii xitaa ingiriis ahaan uu kusoo tarjumay uu kusoo lifaaqo what we call a certificate of translation like shahaado caddaynaysa qofkaani in uu af soomaali ama qoraal ahaan kaga soo gudbiyey oo waxay dhahaan translation oo yani side translation ama afka looga sheegay marka taa waxa waaye waa muhiim waxaan kusoo gabagabaynayaa inkastoo aan hargabsanahay aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay 2 of our clients today were released from ICE custody in Texas marka rajadu walaalayaal way fiican tahay
laakiin kiisaskiina fadlan ka shaqagala. Asylum in general wuu soo adkaanayaa. Marka sidii horetood arrinta ma aha, aad ayay isku bedelaysaa. Hadhow you can ma eedeyn kartid qof kale. Videoyo kale oo arrimaha asylumka ku saabsan, insha Allah I will follow up midkaan haddii ilaahay idmo. I will try asbuuciiba mar inaan mid meeshaan TikTok soo dhigo. Khayr ayaan idin rajaynaya. Assalaamu calaykum.